farsamada tiknoolajiyada casriga ah waa mid faa'iido iyo khasaare labadaba lagala kulmay. marka dhinac laga eego waxay ka dhigtay nolosha mid aad u sahlan waxaana u leedahay adeegsi wax ku ool ah, balse dhinaca kale waxay sabab u noqotay tirooyin badan oo faa'iido darro ah iyo keenitaanka xaalado caafimaad oo aad u daran. haddaba waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa mid ka mid ah tiknoolajiyada oo aynu adeegsano inaynu wax ku dhageysano habeen iyo maalin, waana halista caafimaad ee ay keenaan sameecadaha dheguhu. walimkana qadar yar oo ogeysiisa. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo, comment bixi, like saar, ku jijeliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyada aanu soo gelino siina shargare. mahadsanid. dhegala-aan badanaa sameecadaha dheguhu waxay dhammaantood dhagaha ku sii daayaan cod aad u sarreeya, waxaana sababi karaan dhaawac aad u halisa oo dhagaha soo gaadha. tusaalehaan haddii aad dhegaysato inuu dhiganta ama ka badan 90 decibels, tanna waxay ku horseedi kartaa dhaawac soo gaadha dhagaha oo ku dambeeya dhagala-aan joogta. haddaba si looga hortago dhibaatada intaas leg, qaado waqti oo nasi dhagaha waana inaad dhexdhexaad ka dhigto codka maqalkooda xilliga dhegeysiga sameecadaha. cadaadiska dhuumaha hawada waxaa soo baxaya maalmihii u dambeeyay sameecado tayo sare leh kuwaasoo dhegta meeraladeeda la dhigo. waxay aad ugu dhow yihiin durbaanka dhegta oo ah kan maqalka qaabilsan. adeegsi waqti dheeri ah waxay ka dhigan tahay inay xidhayaan dhuumaha dhegta oo kugu keeni karta oo nuglaasho caabuqa dhegta ama infekshanka dhagaha ku dhaca. caabuqa dhagaha arrinta muhiimka ayaa waxay tahay in aanad la wadaagin dadka kale sameecadaha dhagaha. wadaagitaanka sameecaduhu wuxuu sababi karaa caabuqa dhagaha oo halis ku ah caafimaadkooda. haddiiba ay dhacdo in lagula wadaagay ama aad qof kale la isticmaasho kuwiisa, isku day inaad iska nadiifiso ka hor adeegsigooda iyaga. kabubyada dhagaha dhegeysiga dheeriga ee sameecadaha la gashanta dhagaha saacado badan waxay ku horseedi karaan kabubyada. waxay lumin karaan awoodda maqalka ee qofka muddo aan sidaa u badnayn, laakiin iskandhatirka calaamadahan iyo sii waditaanka caadaysiga habdhaqankan waxaa laga yaabaa inay ka dhalato natiijo dhagala-aan waqti dheer qaadata. dhaga xanuun isticmaalka waqti dheer sameecadaha dhagaha ama dhegeysiga codod maqalkoodu sarreeyo waxay keenaan dhaga xanuun. waxaad u leedahay waayo aragnimo xanuunka daran oo aan ka ahayn mid ku kooban dhegta oo keliya, balse dhammaan qaybaheeda isku xidhan oo dhan. saamaynta maskaxdeedu uma dul qaadan karto dhaawac iyo xanuunada uga imanaya saamaynta sameecadaha dhagaha ee la kordhiyay isticmaalkooda waqtiga badan. waxay soo saaraan mawjado aanay suurtagal ahayn kuwaas oo dhaawac halisa u geysan kara maskaxda, gaar ahaana dhaawac kasta oo soo gaadha qaybta hoose ee dhegtu. qaybtani waxay ku xidhan tahay maskaxda oo sidoo kale iyana dhaawac ugu gudbi karo si fudud. dhukayga dhagaha isticmaalka waqtiga dheer sameecadaha dhaguhu waxay sare u qaadaan soo saaritaanka dhukayga ee qofka, kaasoo laga yaabo inuu xaaladooda ka dhigo mid aad u cakiran caafimaad ahaan, sida inuu sabab u noqdo infekshanka, lumitaanka maqalka dhegta ee dibadda iyo qayb ahaan dhaawac soo gaadha dhegta.